بسم الله الرحمن الرحيم waxaan caaw mar kale wareysanaynaa siyaasi Maxamed Xasan Mataan oo ah afhayeenka xisbiga udub ee dalka Ingiriiska isaga oo Maxamed jawaab kulul ka bixinaya hadal ka soo yeeray xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka tirsan xisbiga UCID isaga oo xildhibaanku hadal uu maanta ka sii daayay idaacadda loo yaqaan Horyaal ee ku hadasha afka xisbiga kulmiye ku eedeeyay in xukuumadda Soomaaliland ay ka dambayso dilkii foosho xumaa ee dhawaanta ka dhacay jidka u dhaxeeya dila iyo magaalada Kalabayd. Maxamed bal marka hore waxaan ku weydiinay dareenka aad ka qabto hadalka ka soo yeeray xildhibaanka. waad maasantay horta waxa aad iyo aad taasi waxaan u jeedinayaa gaara qoyskii dadka xasuuqa ku dhacay habeenkii sabti oo caawa 7 habeen ku ah gaar ahaan ilaahayna xariistiinaagsiyo dadkaas oo dad aan dambiye galabsan guud ahaan qaranka Soomaaliland kuwa baal madow iyo habeen madow iyo taariikh madow waxa la su'aashaad weydiisay sida ay u dhageysatay baan u dhageystay Maxamed Faarax Qabiile oo xildhibaan hadiye jeer xildhibaanada mucaaridka oo taariikhda xiyeen mataqaana mucaaradadiisa la og yahay inay ku saleysnayd wax xaqiiqada ka fog mar walba waa nimanka marka maanta dib loo noqdo iyo kamid yahay taariikhda mataqaana warbaahinta waxay ummadda u mariyeen ay tahay waxyaalo la yaab leh waxaase ku sheegaya waa nasiib darro maanta Soomaaliland oo dhan inkastoo garaade inkastoo caaqila inkastoo wadaniyadii waxa ku dhacay ummadda Soomaaliland wax baalmadow u qormay waxa ergadii ummadda mataqaana maanta meel kastoo jooga Soomaaliland ka gurmanaysa hadalladaas ee xasuuqaasi lama filaashada ah ee ka dhacay jidka u dhaxeeya dila iyo Kalabayd oo ka fog wixii iyo meeshii la isku haystay beeraha ilaa Ingiriiskii la isku haystay ee marna aha daaqir marna beeraha wax la xiriiro waxa dhacay ma aha ergadii maanta halka Hargeysa ka hadashay ee gurmatay way ku maartan yihiin waxaan u sheegayaa Maxamed Faarax Qabiile marka uu leeyahay xukuumadda ayaa fulin weydo soo baahay xasuuqaasi waxa ay dad badan tuusan yihiin in dad badan ay arrinka kan isaga ah cidii maanta talo wanaagsan oo walaalnimo ah oo baaritaana ka geli weydaaba waliba siyaasiyiinta ku hadlaya ee isku xiriirinaya laba shay oo aan iskayn oo ah xasuuq bani'aadanimada iyo diinteena xaniifka ee islaamkaba ku foolxun oo ka dhacay halkaa ninka ku xiriiriyay go'aankii ceel bardaale waa nin xadantada iyo mataqaana damqashada caawa taagan dadka gobolka Awdal mataqaana raba in ay hurto oo ay dhanka kale tagto waxaana kamid ah ragga isku xiriiriyay go'aankii guurtiga fulinteeda go'aanka la ogaa in goobtii lagu dhawaaqay inay ka kaceen kuwii kale Soomaaliland guurteeda suba salaaxday ahayd sidii u soo dhaqnayd ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa oo aan aad iyo aad uga digayaa siyaasiyiinta Hargeysa joogta maanta dadka jooga gobolka Awdal wax garad iyo culimo iyo mataqaana aqoonyahan dib weyn baa haysata waxay ku haboogan yihiin wixii dadka la xasuuqay eheladoodii maxaa ka soo yeeri waad ogtihiin ergada tagtay waxay la tagtay maanta oo aan hayn tacsiilaa maanta ma jirto waa niyad wanaag waa wax fiican waa wax dhaqanka ummadeenna ah laakiin xukuumaddii oo aan ilaa maanta oo habeenkii 7 aan ficil muuqda samaynin oo ilaa maanta horkeenin sharcigii ay xaq loogu lahaa in lagu soo qabto waxa taagan dadkii oo gadoodsan caawa waxaan dhageysanayay 4 beelood waayo 4 beel waxa dil qorshaysan buu ahaa ma aan xasuuq qorshaysan buu ahaa 4 beelood dadkoodii baa hadlayay oo eedeynayay cid walba oo reer Awdal eedeynaya oo eedeeya xukuumadda oo xaq baan u leenahay hadii lamna marin waayo wixii aanu xaq u lahayn waxana la leeyahay waxa doontaa sameeya haddaba waxaan ka digayaa sida Maxamed Faarax Qabiile oo kale siyaasiyiinta Hargeysa joogta fadlan miidiyaha ay ka daayaan inay isku xiriiriyaan xasuuqaasi Professor Ali Sheikh Hargeysa waxa ka dhigay ardayda reer Hargeysa wax barayay forum wax ka dhigay waxana lagu gumaado lagu gowracay dira iyo kala bidixdooda waa dareen damqashada
haddaba waxaan ka digayaa nimanka siyaasiyiinta hargeysa jooga adeer arrinkaa ceel bardaale weji buu leeyahay ummadaasi ummad kale tegaysa maaha iyagaa iminkana weji ay ku xalilaan rabay waa lagala dulbooday waana la arkayaa ummadaas iyada xalkeeda ceel bardaale gaadhi laakiin xasuuqaa dhacay oo ageeri ummadda somaliland maanta tii ugu xumayd ee soo marta oo maalintii laistilaya afweyne joogay aan dhicin ka dhacday waxaan leeyahay siyaasiyiinta wadwadaag ereyga waxa xukuumadda ka dambeysay sida qabiilo kale waxaan u arkaa kuwii qayb ku lahaa inay waxa kan dhacaan ama ku faraxsan ficilkaasi maxamed ma laga yaabaa xildhibaankani inuu hadalkiisu ka hordegayo hadaladii oday suldaanada iyo waxgaradka kale shalay ay ku gaadheen magaalada Boorama oo isafgarad ahaa in uu qoonsaday oo markaa uu isleeyahay ka hordeg ma dhici kartaa wallahi anigu ma rabo inaan ku dambi inaan ku galo oo aan idhaahdo waxba ku hordegayaa waayo xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad u baahan maanta in aynu gebigeenu gacmaha isqabsano in aynu waxaasi xalkiisii la raadiyo oo laga hawlgalo aqoonyahan iyo xildhibaan iyo xukuumad iyo suldaanba sidii dambiilayaashaasi ummadda oo dhan dembiga ka galay ee qarannimadii Somaliland ee lagu faanayay dabarka ka toogtay sidii aynu u soo qaban lahayn waxaan si anigu leeyahay sikfa kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta niman waayo turtaba dhowr jeer baan ka arkayaa internetka ereyga xukuumadda oo furin weyday adeer ninka ceel bardaale iyo arrinkii guurtida oo ognahay iyo arrinkaa dhacay maanta cidda isku xidhiidhisaa waa cid ujeeda meesha kale waxaan leeyahay dhibaatada gobolkii awdal ka taagan adeeriyaan sidaa odayaasha guurtidii milgaha iyo sharafta ay reer dadka hargeysa ka baxay sameeyeen ee u baroordiiqeen ninkaan wax u qabaynayna ha ka baroordiiqo laakiin ha laga daayo waxaan iskeenin madaxa la isku saaro maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay